waxa buuq badani uu ka dhashay saacadihii la soo dhaafay dhismaha golaha deegaanka ee degmada Balanbale kaas oo intiisii badneed la gabagabeeyay aysanna dhiman tahay xubno laba ah iyo waliba doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi Balanbale hase yeeshee dhismahaas iyo waliba qaabkaasi ayaa waxa buuq badani ka dhashay arintaasi ayadoona ay madaxweynaha Galmudug iyo qaar kamid ah wasiirada Galmudug ay cadaadis ku saareen siyaasiyiin deegaan ahaan ka soo jeeda Gurceel oo sheegaya in ay Balanbale dhismihiisa qayb badan ku leeyihiin in la joojiyo hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa khilaafkaasi iyo waliba cadaadisidaas badankii waxay u kala jabtay laba qaybood halka wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi warqad uu soo saaray ku sheegay in guud ahaanba la joojiyo dhismaha golaha deegaanka ee degmadaasi Balanbale hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa boggeeda waxaa lagu daabacay inay shaqadii Balanbale dhamaatay ayna sii wadi doonaan deegaanada kale ee u harsan isla goor dhaweyto ayaa waxa guddiga farsamada ee gacanta ku haya dhismayaasha golaha deegaanka ay waraaq ay soo saareen ku sheegeen in guud ahaanba ay soo afjareen dhismihii golaha deegaanka ee degmadaasi Balanbale ayna u gudbi doonaan deegaanada kale waxay kaloo xuseen in aysan jirin wax amar ah oo kaga yimid wasaaradda amarka lagu joojin karana shaqooyinka ay wasaaraddu wado ama guddiga uu wado uu ka soo bixi karo oo kaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkana aysan ka haynin wax hadal ah ama shaqo joojina wasiirka warfaafinta xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa asagu fiidkii hore ee xalayta ku dhawaaqay asagana in la joojiyo taas oo ku sheegay inuu amarkaani ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug arrintan ayaa muujinaysa khilaafka baahsan ee dowlad goboleedka Galmudug ka dhex jira ama kala aragti duwan yihiin dhismaha golaha deegaanka ee degmada Balanbale inkastoo haatan sida ay wasaaradda iyo guddiga ay sheegeen ay hawshaasi soo dhamaatay loona gudbi doono degmooyinka kale sida ay sheegeen bulshada degmada Balanbale oo qaybtood warbaahinta Sooyaal la soo xiriiray ayaa aad uga careysan hadalladani ka soo yeeray qaar kamid ah wasiirada dowlad goboleedka Galmudug ma la oga meesha ku dambeyn doonto khilaafkaani ka soo cusboonaaday golaha deegaanka ee degmadani Balanbale waa mahad Bashiir Cismaan mahad xilif warbaahinta Sooyaal degmada Cabudwa